isbitaal yar oo la furaayo waaye maxaa waaye madaxweynuhu maxaa u tagaysaa isbitaalka ma yara horta waa isbitaal weyn $12 milyan oo investment ah iyo biriyo maxaan ku radaa $3 milyan oo kale si gal rabo iyo waxa adeega aan jirinay la soo kordhay horta ma yara waa yani project mega projects aan ka hadli jiray oo kamid yahay ma yara laakiin waxa soo dhan aniga hal mid iga sii muhiimsan dad dhalinyaro ah sidii Dr. Maxamed Saaqo kale oo Soomaali ah oo aad u dhalinyaro inay la yimaadaan fikirka oo fikirkii waliba inta qaataan Nairobi aan ka furan isbitaalka aanay dhihin isbitaal badan oo Soomaaliyeed Nairobi ka furan real estate badan oo Soomaaliyeed daar dheer oo qurxana yaa Nairobi ku yaal waa fiican yihiin mana ka dayno dal waaye Kenya waagi aan meelan aadna aan weyne aan ku cararnay way mudan yihiin laakiin maanta waxa uga baahi badan Soomaaliya haddii isbitaal la furay haddii daar la dhisay haddii maxaa intaba Soomaaliya ugu sii baahi badan marka muhiimadda soo jiidatay inta ay keentay waa dhalinyarada iyo initiative-ka ay la yimaadeen waxa ay sameeyaan materialka ma aha